shan qaab oo online kala ugu sameyn karto. Assalaamu calaykum soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo shan qaab oo aad online kala ugu sameyn karto. Balse waxaan doonayaa ka hor intaan video-ga bilaabin marka hore inaan sheego inaad online lacag ka sameyso sidaan u aaminsan waxay ka adag tahay inaad si caadi lacag u sameyso. Waxyaabaha inta badan dhalinyarada si qaldan wax u fahamsiyo waxaa kamid ah in marka online lacag laga sameynayo ay tahay wax fudud. Marka intaan video u guda galin waxaan doonayaa marka hore horta inaan idin sheego inaad online lacag ka sameyso ma wax fudud. Waxay u baahan tahay waqti badan, waxay u baahan tahay dadaal badan, waxay u baahan tahay inaad u sabarto. Waa ta ugu muhiimsan sabarka. Sababtoo ah dhici doonta hadhow online ka markaad wax ka sameey inaad markiiba heli weydo. Marka hadda doonaysid inaad online lacag ka sameyso marka hore ku talagal inaysan ahayn wax fudud oo ay xitaa ka adag tahay inaad sida caadiga ah offline-ka ee shaqaalanimada ay ka adag tahay. inaad online lacag ka sameyso hal mid ay ku fiican tahay oo ah market entry-geeda fudud. inaad online lacag ka sameyso waa horta business adigu aad bilaabayso oo adigu aad xor u tahay. Business marka la bilaabayna wuxuu leeyahay wax la yiraahdo market entry. Gelista hore in online lacag laga sameeyo way fudud tahay. Waxa kugu filan mobilkaaga aad qaadato oo aad adigu ku bilowdo inaad channel ku furto waxa ku duubto. Marka koowaad aan isla garanataa in online lacag laga sameeyo way adag tahay laakiin in la bilaabo fudud. Marka taas horta marka hore maskaxda ku hay. qodobka koowaad shanta qodob waxaan doonaynaa in usii guda galno. qodobka koowaad waxa weeye wax la yiraahdo content creation. inaad sameyso content oo aad videos iyo blogging sameyso. labadaba content creation baa la yiraahdaa. Video marka sameyso waxaad isticmaali kartaa YouTube platform-ka oo ah kan ugu weyn. Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa Facebook iyo TikTok oo xitaa imika loo sameynayo in lagu soo daro platform-ka monetization-ka lacag laga sameyn karo. marka doonaysid lacag online ka sameysid waxa kale oo doonaysaa in waxa laga rabaa in iska sii ogaato wax la yiraahdo CPM-ka. YouTube kale wuxuu leeyahay CPM wax la dhaho oo ah kunkii qof ee ku daawada lacag intee lag baa ka heli kartaa. caqabadaha neystan waxaa kamid inta badan Soomaaliya dadka ka daawanaya iyo Afrika inteeda badan CPM-kooda aad buu u hooseeyaa ilaa $2 xitaa ma gaarayo. Kunkii qof ee ku daawada waxa laga $1 wax la mid ah ka hesho. marka si lacag badan u sameyso waa inaad audience aad u wanaagsataa. Taana waxay u baahan tahay sabar iyo waqti badan inaad geliso. marka content creation-ka uu fiican yahay laakiin wuxuu u baahan yahay waqti badan in la geliyo, loo sabro, audience badan la abuuro, laakiin lacag waa laga sameyn karaa. Number 2 qodobka labaad isagana waxa weeye freelancing. sida isleeyahay aniga marka content creation-ka laga yimaado qaababka kale ugu fudud lacag lagu sameyn karo waxa kamid ah inaad freelancer noqoto. Freelancer aad noqoto waxay u baahan tahay inaad xirfad aad ugu fiican tahay aad garanayso. xirfadaha waxay noqon karaa inaad multi language taqaanid oo aad tarjumaad sameyn kartid. oo freelancerada ugu badan imika Soomaalida waxay lacagta ugu badan ka sameeyaan way content-iga ee translation-ka ku sameeyaan. marka waxa laga yaabaa documenti English ku qoran in lagu dhaho Soomaali u bedel ama documenti Soomaali ku qoran in lagu yiraahdo English u bedel. marka inaad garanayso xirfad noocaas ah oo aad ku fiican tahay. iyo number 2 inaad xirfado kale aad garanayso sida programming oo kale iyo freelancing aad buu ugu fiican yahay. iyo graphic design oo kale sidoo ku shaqeysan kartaa. laakiin xirfadan sida content creation oo kale aydan waxay u baahan tahay sabar badan inaad ku wanaagsan tahay shaqada qabanaysid. haddii aanad ku wanaagsaneyn oo aadan 100% xariif ku ahayn waxa laga yaabaa inaad wadi kara weydo oo clients-ka aad hesho hadhow rating xun ku siiyaan oo hadhow aad dad kale oo aad u shaqeysaa weydo. qodobka saddexaad isagana waxa weeye online training inaad sameyso tababaro online. tababarada online ka kamid ah waxyaabaha ugu fiican lacag laga helo. haddii aad adigu xirfad garanayso aad ku wanaagsan tahay soo jeedintaadana ay fiican tahay waxaa jira dad aad iyo aad u badan oo ka faa'iideysan kara oo aad u sameyn kartid koorsooyin online oo haddii ay qaataan ayaguna ka faa'iidaan adiguna lacag ka hesho. marka online training waxyaabaha ugu fiican waxa kamid ah ayaga waxa aad iyo aad u soconaya qarashka sameynaysid oo passive income bay ku noqonaysaa. marka haddii course aad iyo aad u wanaagsan aad duubto waxa laga yaabaa in dadku ay ka faa'iideystaan in badan oo maybe sanadkii ama 6 bilood hal mar update ku sameyso course-ka oo isagu iska socdo. marka haddii jirto xirfada ku wanaagsan tahay oo dadkana aad uga faa'iideyn kartid sameey qiimo aad iyo aad u jaban ka dhig si dadka ay uga faa'iideystaan. course-kaaguna update ha yeesho dhowrkii biloodba mar si isbedelka dhacaya iyo teknolojiyadda ula jaan qaadi karo. qodobka afraad isaga waxa weeye wax la yiraahdo digital marketing. digital marketing ku laba buu isku noqdaa. isaga lama dhihi karo 100% online way oo waxa u baahan tahay clients offline in ay hesho. laakiin haddii aad ku darto xayeysiin badan oo digital marketing isku xayeysiiso Facebook meelaha laga yaabo dad doonaya digital marketing loo sameeyo oo magaalada joogta magaalo ahayn ama xitaa wadamo kala jooga kula soo xiriiraan
aad si online ugu shaqayn karto marka digital marketing sida asla aniga waa fursad aad iyo aad ugu bannaan magaalada haddii aad ku wanaagsan tahay digital marketing oo si fiican u baratay dadkan aad si wacan ugu shaqayn taqaanido client management customer relationship ka iska hagaajiso waxaan ogaa inaad heli karto customer badan oo u baahan in hawsha loo qabto haddii noqoto offline oo magaalada adigu aad dhex marto oo aad dad raadiso iyo haddii noqoto online oo aad si online dad ula shaqayso oo aad Facebook ama WhatsApp ama email ama qaab kale u shaqayn kartaan ay jirto oo ku shaqaysan kartaa xirfadda marka xirfaddaasi waa xirfad semi online oo u baahan qayb ka mid ah offline ay noqoto si u shaqayso xirfadda shanaad oo aan kusoo gabagabeyn doono waxay noqonaysaa xirfadda la yiraahdo web development inaad website-da u samaysid dadka xirfaddan waxay u baahan tahay inaad barato oo aad ku shaqaysato waxay u baahan tahay inaad web development si fiican u taqaanid boqolkiiba 90 imika website-da adduunka la isticmaalo badankood haddii aysan ahayn application customer waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo WordPress so WordPress-ka si fiican u taqaano waxaad awood u yeelan kartaa inaad dad badan la shaqayso dad badan baa jira doonaya in website loo sameeyo dad badan baa doonaya in emails yeeshaan marka waxaad samaysan kartaa agency online oo xitaa Soomaali kaliya u shaqayn kartaa oo shaqayn kartaa international haddii aad luqadda English ku fiican tahay waxaad samaysan kartaa hosting in dadka qofka marka website loo sameeyo xitaa kira ku socoto sanadkii marka kirada haddii aad lacag yar saarato waxa laga sanad walba inay profit kaaga soo dhacdo halka oo ay ku noqoto lacag passive oo ku socota dad badan online kana ugu shaqayn kartaa marka shanteen qodob intaas buu ku eegay balse waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo sida hore idin kugu sheegay in online lacag laga sameeyo ma ahan wax fudud taa maskaxda ku qabso waxay u baahan tahay waqti badan inaad geliso haddii waliba aad doonaysid online ka inuu noqdo online nadiif oo xalaal ah oo si adaab leh oo nadiif ah u wado haddaan dadka caynaynin siyaasad iyo dhaqan xumo aanad wadin waxay u baahan tahay sabar iyo waqti badan si waxaan xalaal ku noqdaan oo nadiif ay ku noqdaan every business sida businessadoo kale buu isagan u baahan yahay waqti inaad geliso u sabarto tababar badan ku qaadato oo aad xirfadaha iyo aqoontaadana sii horumariso marka waxaan aad iyo aad u rajeynayaa muuqaalkan ka faa'iideysatay hana ilaabin in asxaabtaada familkaaga cid walba isleedahay uu ka faa'iideysan karaa la share garayso aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh